السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دhowaada warka telefishinka caalamiga SBC oo xiligan idin kaga imanaya xarunta dhexe TV-gu ku leeyahay magaalada xeebeedka Boosaaso. Qodobada xilli tabinteena wareed ku daawan doontaana waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Muqdisho kaga qayb galay xuska 26 Juun hambaliyana u diray ummadda Soomaaliyeed. madaxweynaha Soomaaliya cambaariyay weerarkii lagu qaaday hotel Naasa Hablood ee Muqdisho taasina u diray eheladii iyo dadkii ku geeriyooday weerarkaasi. madaxweynaha Soomaaliland oo ka qayb galay munaasabad balaaran oo lagu xusayay 56 guuradii ka soo wareegatay 26 Juun. faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaysa weerarkii kooxo hubaysan ay ku qaadeen hotel Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ka qayb galay olole hoos loogu dhigay isticmaalka dhuxusha. daawadayaal kuwaas waxay kamid ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka TV-ga SBC. kullu waxa daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan haddii Allah wada la raali ka noqdo hase yeeshee qadar kooban oo adeega bulshada. mar kale kulanti haboon daawadayaal iminkana ku soo dhawaada warkii oo fidsan waan idin akhriyo anigoo Yacquub Casheeya. madaxweynaha dowladda federaaliga Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho kaga qayb galay xuska 26 Juun hambaliyana u diray ummadda Soomaaliyeed sida warkan ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdirasaaq Cabdulqaadir. iyadoo lagu guda jiro toddobaadka xorriyadda qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ayaa madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud subaxnimadii hore ee saaka waxa uu wax dhigay taalada daljirka Daasoon degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. munaasabadan lagu weyneynayay 26 Juun oo ku beegan 56 sano guuradii ka soo wareegatay xilligii gobolada Waqooyi ee dalka Soomaaliya xorriyadda ay ka qaateen gumeystihii isla markaana calankeena buluuga oo xidigta shanta gees dhexda ku leh dhidibada loo aasay. madaxweynaha Soomaaliya ayaa salaan sharaf ka gudoomay cutubyo ka tirsan ciidamada baanbeeda qaranka Soomaaliyeed waxayna goobta ka qaadeen astaanta qaranka Soomaaliyeed. madaxweyne sanad guurada aanu dabaaldegayno ee 60 ku soo dhawow ubaxna noo dhigo madaxweyne soo dhawow. intaasi kadib madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wax dhig kadib khudbad dheer ka jeediyay fagaaraha taalada daljirka Daasoon oo boqolaal dadweynaha isugu soo baxeen. ugu horeynsa madaxweyne Xasan ayaa tacsi u diray eheladii dadkii ku dhintay qaraxii hotel Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. waxaan ku raadayay fadhi ugu dambeeyay ee xalay fiidkii dhacay intii maxaan ku raadayay ku dhimatay sabir iimaan Allah ka wada siiyo ayagana maxaa waxa dhig kara waa mujaahidiin ilaahay maxaan ku raadayay jannadii firdawsa Allah ka waraabi. waxaan si gaar ah uga tacsiyeynaa wasiirkeena Hamza Burci
oo ku jiray muxuu ahay dadkii xalay ku geeriyooda halkaa iyo dhammaan gabdhihii Soomaaliyeed iyo bannaanka wadada mariyay ee wadada taagnaa ee ku ganacsanayay ee maxaan ku raadahay timirtii yarada afurkeed agta ku tiilay oo aalaanka sugayay oo soonaa maalintii oo dhan intaanay afurinta buglasiya qaraxaasi dhacay meesha ku dhintay dadkaas ama wadadu marayay ama ganacsiga wadada dhinaceeda ku haystay ama si uu meesha ka dhawaa ahaa waad aragteen intuu la ekaa muxuu ahay balaayada ay ka soo buuxeen soo rakibeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadalkiisa sii wato ayaa si kulul u cambaareeyay kooxihii weerarka ku soo qaaday hotel Naasaha Bilood 1 kilometer 4 ee magaalada Muqdisho. hotel Naasaha Bilood duhurnii uu dambi ka galay waa hotel meesha ku yiri 40 sano oo soo dhaafay ka badan waa hotel maxaan ku raadaa dadka Soomaaliyeed dadka ganacsatada Soomaaliyeed xoolahooda ay geliyeen kuwa kale oo shacab ah oo Soomaali ah ay deganaayeen kuwa badan oo Soomaali ah ay ka shaqaysanayeen oo caawa qoysaskooda wixii u noqon lahayn maanta meesha ay ka helayeen wuxuu bixiyay soo ummadda muxuu ahaa dhunta muxuu ahaa laga qabto Soomaali hal la cuna qabatay qofkii Ilaahay waqtigiisa geliya ku dhintay kuwii kalena muxuu Ilaahay waqtigooda aanu gelin ayagoo badbaadiyo nabad ahaa laga soo hoos saaray burburkii qaarna ay ka baxsadeen marka nimanka meesha jooga ee sidaa u shaqeynaya u fikiraya nin aan Soomaali ahayn baas inta u soo rakibo balaayo isku soo diibo u leeyahay oo dadkaaga geey nimankaas aan leeyahay tol maahi qaraabo maahi waalid iyo walaal isuma ahi inta fikirkaas ay aaminsan yihiin oo sidaas ay qabaan wax naga dhaxeeyo oo Ilaahay abuuray ma jiro aan naga dhaxeeyo dalka inaan ka cishano oo ka dhaxsano naga dhaxeeyo ajnabigooda iyo maxaan ku raadaaye baraayada ay wataan in dalkan oo dhaafaan dalkan Soomaaliya yiraahdo Soomaalida ku noolaa iskale waxaa kaloo ku noolaan kara cidii Soomaalidu ay u ogolaato oo sifashay ay ugu ogolaatana way ku noolaan kartaa ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa fagaarahaasi ka jeediyay ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu hambaliyay munaasabadan 56 sano guuradii ka soo wareegatay xilligii gobolada waqooyi ee dalkeena ay xorriyadda ka qaadeen gumeystii inta kadib markale waxaan leeyahay baryo dhammaan ummadda Soomaaliyeed 26 Juun waa maalin weyn oo taariikhi ah oo taariikh leh siday ku timid 1960 isu raacday isu doonatay ayadoo isu hilowsan in ay mar kala timaado oo sidaas isu qaadato ayadoo isu hilowsan oo isjecel ayaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis waana ka shaqaynaynaa haddii aan yiraahdo taasaan taaganayo ugu ogtiin inaan ka shaqayno oo aan ka shaqayno si dib dambe weligeed aanu dhaawac ugu dhicin dib dambe si aanu dhaawac ugu dhicin oo midnimo hagaagsan oo lagu midaysan yahay la garanayo oo aan qofna ku xadgudbi karin inay timaadaan rabnaa waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan hambalyaan leenahay dhammaan dadka Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaan si gaar ah hambalyo u leenahay walaalaheena Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga Soomaaliya waxaan leenahay adinkuna hambalyo waa maalinteennii waa maalintiinnii dadaalkii iyo geesinimadii iyo sharaftii iyo heybadii aad ku keenteen waa xusan tahay waana qoran tahay Sharmaaka Xuseen warbaahinta SBC Muqdisho faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa weerarkii ay kooxaha ku qaadeen hotel Naasaha Bilood ee magaalada Muqdisho sidoo warkan ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdi Shakuur Cabdi Xaashi ku dhawaad 20 ruux ayaa ku geeriyootay inta ka badan oo ay ku dhinteen wasiir doolihii bay'ada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Burci Maxamed Xamse ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkii hotelka Naasaha Bilood ee weyn ee Muqdisho gaari waxyaabaha qarxa laga soo bixiyay ayaa ku qarxay iridka hore ee hotelka Naasaha Bilood ee weyn oo ku yaala agaarka iskooska lamar 4 ee magaalada Muqdisho kooxihii hubeysana ayaa qarxi kadib galay gudaha hotelka iyadoo deeqada gudahood kadib ay ciidanka ammaanka gudaha hotelka ayaa waxa laga maqlay rasaas ay soo wadaarsaday kooxihii galay hotelka ciidanka ammaanka markuu soo dhamaaday howlgalkii ciidanka ammaanka ay kula wareegeen goob ayaa waxa saxaafadda la hadlay abayeenka amniga aan taaganahay goobtii argagixisada ay ka geysteen dhibaatada waxay ahayd shalay casarkii ay ahayd xilliga ay galeen meesha ay qaraxa ka geysteen waad aragtaan waqtigooda meesha uu daadsan yahay ilaa khasaaraha hadda uu sii kordhayay xalay ilaa 4 saac xilliga la soo afjaray intaan anaga markaas ogeyn waxay ahayd 12
isla xalay waxaa laga soo saaray burburkan ilaa 3 qof oo kala laga soo saaray tirada waxay ka dhigaysaa 14 saaka waxaa la ii sheegay sidoo kale in dad kale laga helay tirada ilaa haatan inta hadda aan ognahay waxay gaaraysaa ilaa 16 qof burburka khasaaraha soo gaaray hantidana waad aragtaan ilaa iyo 20 baabuur waaye burburka waxyaabaha soo gaaray iyo wixii ka dhawaa oo dhan oo burburay waxaan rajeynayaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo inay sidaan oo kaleeto waxaan ku dhahay ayaguna waqtigooda uu banaanka u daadsanaan doono ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ma aqbalaayo mana aqbali doono inuu waxaan ku dhahay inuu argagixisada inay cabsi geliyaan argagixisadu dhibaato ayay ku hayaan waa aragtaan hadda saddexdii meesha soo gashay meedadkoodii waqtigoodii meesha u yaallo waxaan rajeynaynaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo in ay yaraadaan dhibaatooyinka noocaan oo kaleeta waxa lagu jiray 10kii dambe ee Ramadaan qof cibaadeysanay waad garan kartaa waa shuhadaa dadka meesha ku dhintay Abshkuur Abdi Xaashi warbaahinta SBC magaalada Muqdisho deegaanada Somaliland ayaa laga xusay 56 guuradii ka soo wareegatay 26 Juun markii ay gobolada waqooyi ee Somaliland ka xoroobeen gumaystihii Ingiriiska sanadku markuu ahaa 1960 sida ay wararkan ku soo direen wariyaashayada nooga soo warama gobolada iyo degmooyinka Somaliland xaflad ballaaran oo lagu xusay sanad guuradii 56aad ee markii ay xorriyadooda ka qaateen Soomaalida Ingiriis ee sanadkii 1960 waxa lagu qabtay qasriga madaxtooyada Somaliland ee magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici gudoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland gudoomiyaha ku-xigeenka golaha wakiilada ee Somaliland gudoomiyaha xakabada sare iyo waliba wasiiro dawlo wasiiro ku-xigeeno agaasimayaal ururada bulshada isbiyada qaranka ururada haweenka saraakiisha ciidamada qaranka Soomaaliland marti sharaf fara badan oo lagu casuumay xuska sanad guurada 56aad ee calanka ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Somaliland oo shacabka ugu hambaliyeeyay khudbad dheer oo uu ka jeediyay qasriga madaxtooyada Somaliland oo dhinacyo badan taabanisay mudanayaal iyo marwooyin oo reey waxaan hambaliyeeyay bogaadin ballaaran hawada u marinaya dhammaan shacabka weynaha Jamhuuriyadda Somaliland meelay joogaanba munaasabadda sanad guuradii 56aad ee madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland ee 26 Juun 1960 dowladda Ingiriisku waxay soo caga dhigatay cariga Somaliland 1887 iyada oo aan xoog ku qabsan balse ku timid heshiis ay la galeen beeldeejiyaashii iyo birbageedadii hormuudka u ahayd bulshada Somaliland xilliga ah Somaliland ma ahayn dal toos loo gumaystay sida dalalka Afrika badankooda hase yeeshee waxay ahayd maxkamad ay ilaaliso ama ay maamusho ciideeda boqortooyadii aan ciidankii aan ciidu ka dhici jirin calankeeda ciidu ka dhici jirin in ka badan qarni barkii ayaa laga joogaa maalintii Somaliland la soo noqotay jamhuuriyadda madax bannaan ay noqotay oo dawlad iyo dal iyo aqoonsi la aqoonsan yahay halka qaraad iyo hayaan dheer oo loo soo galay xaqiijinta himiladii gobonnimada doonka waxay Somaliland nasiib u yeelatay inay ku guulaysato qarnimo buuxda isla markaana noqoto dalkii 15aad ee qaaradda Afrika qaadatay madax bannaanideeda taasoo cadaynaysa inaynu ka hana qaatay horeynay badiba wadamada Djibouti bariga bartamaha Afrika sida Kenya, Uganda, Tanzania, Djibouti, Somalia, Eritrea, Rwanda, Burundi, Central African Republic, Mozambique, Zambia iyo Malawi nabaddu waa asaaska nolosha aadamaha waana waxa aynu ummad ahaan ku soo cawo iyo caanamaalay sidaa darteed anaga oo munaasabadda ka faa'iidaysanaya waxaan baqnabadeed u dirayaa beelaha walaalaha ah ee dhintu ku dhex martay deegaanada Dalkaygeeye iyo Dhuumay in martida sharafta leh ee kala duwan ee mudanayaasha marwooyinka aan ugu mahad celiyo kasoo qaybgalka munaasabadda qiimaha badan
si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa wakiilada dowladda Jabuuti iyo Turkiga ee u fadhiya dalka Soomaaliya. markii ay saacadda Hargeysa ay soo gaadhay abaar 12 habeenimo ee madaxweynaha Somaliland iyo guud ahaan madaxda sare ee Somaliland u istaageen saaridda calanka Somaliland. فيصل يوسف كعان وربعين SBC هرقيسة. waxaa maanta iyo habeennimadii xalayba si weyn looga xusay dhammaanba dalka Somaliland sanad guurada 56aad ee ka soo wareegtay maalintii Somaliland ka xorowday boqortooyada Ingiriiska 26 Juun 1960 waxaana ka soo qayb galay munaasabadani mas'uuliyiin iyo marti sharaf aad u tiro badan iyadoona ugu horeynba madashani ay ka hadleen qaar ka mid ah salaadiinta gobolka Togdheer iyo sidoo kale taliyayaasha qaybaha kala duwan ee laamaha ammaanka gobolka Togdheer xogayaha degmada Burco iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo iyo xubno mataliyay haweenka gobolka Togdheer waa maalin weyn waa maalintii aynu helnay ka go'nay Ingiriis waa maalin qaaliya waa maalin aad inoogu weyn Ilaahay baa mahad leh ruuxaan arrintan waa arrin qiiro leh waa arrin xasuus leh maanta waa 26 Juun ragii goobjooga ka ahaa muxuu ahaa aqal xirsi ayaa hadalku ruuxaan ku gabagabaysan yahay laakiin waxay ujeedada u leedahay waxa weeye inaynu xusno 26 Juun oo ahaa sareeyo manusqaame aan sidoo yahay eegne ka nasiib ka nasaar runtii mujaahidiintii u soo halgantayna SNM in badan oo maanta gidaarada tuban oo iska dayacanna way jiraan in badan oo ku geeriyootayna way jiraan agoon badan baa jirta wax far badan baa jira Ilaahay baa idinka jisaysiin baan leeyahay waa maalin qaran Ilaahay mahadi baan joognaa runtii magaalada Burco ama gobolka Togdheer wax badan bay dheertay degmooyinka kale anigoon faaninaynin waxaan idin sheegayaa had iyo jeer qarannimada Somaliland iyo caadifada Somalilandnimada waxaan qabaa anigoon faaninayn gobolka Togdheer ama magaalada Burco in number 1 ka tahay oo iyadu hogaaminayso marxuuminti kuugu dheelmatayna lagugu maamuusiyo الله قرنك Somaliland موجي شرفتيس ربو قرنك Somaliland ومالنتي 26 Juun aynu maxkamada Ingiriiska ka qaadanay xornimada iyadoo aynu hadana markii dambena wala hulay xamar oo aynu ku darsanay haddana waxa weeyaan koodii may waynu la soo noqonay oo labada maalmoodna maalina Ingiriiskii waynu ka qaadanay maalina waxaynu ka qaadanay Soomaaliya xasan sheekh waxaan leeyahay xidigtii cadayd ee laga xiisa dhacay calankii la xooraad xirsi jows ka dhigato xabadkaaga wali suran haddaanan NFD hingala dhigin oo huurkiya laga qaadin heeriyada haddaanan Jabuuti way hakatee hilanka kuwa kale hayaan marin haddaanan shantu way isku hidde Israaciil sida hubka iswada annaga yahaayeen kuwa sida laha waxa jira soo noqnoqda niman cuqaala ama salaadin isku sheega ama ganacsata oo had iyo jeer waati sahri sheegaysa u heerima ama taga koonfur oo inta waxoogaa oo soo qaataan oo yiraahdaan Soomaaliland baanu matalaynaa oo odayaashii baanu nay haddana inagu soo noqda ballan waxaanu ku qaadaynaa nin dambo gobolkan ana madaxweyne ka nin dambo ka tagay inaan dib ugu soo noqonayn nin dambo oo ka taga gobolkan oo xamar taga oo ka soo qayb oo heerima inaanu dib ugu soo noqonayn halka
si kastaba haatee shacbweynaha reer somalilan ayaa sanad kastaba 26 juun dabaaldegyo iyo dhoolatusyo dhinac kastaba leh sameeya iyagoona ku weyneynaya xuska munaasabadani qaran ee 26 juun oo ku aastaysan maalintii somalilan ka xorowday boqortooyada ingiriiska. aadan cabdikariin maxamuud aadan garasho telefishinka caalamiga SBC magaalada burco. munaasabada xuska 56 guurada oo ah maalintii somalilan xornimadeeda ka qaadatay gumeystihii ingiriiska oo ku beegneed maanta ayaa waxaa lagu qabtay fagaaraha beerta xorriyadda magaalada Cerigabo. munaasabadan xuska 26 juun ee magaalada Cerigabo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka heer gobol iyo degmada, ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan, madax dhaqameedka, beelaha sanaag, dhalinyarada, haweenka, ururada bulshada rayidka ah, aqoonyahan iyo dadweyne kale oo tiro badaniba ayaa kadib dhoolatuska iyo salaan sharaf ciidamadu halkaasi ku bixiyeen. kadib waxaa munaasabadaasi ka hadlay maayirka degmada Cerigabo Ismaaciil Xaaji Nuur kaasoo faahfaahin dheer ka bixiyay qiimaha iyo taariikhdu maalintani ku fadhido. habeenkii 26 juun 1960 markii la lahaa ka nasiib ka nasaar ee calankii ingiriiska la rogayay ee keeni la saarayay waxaan ahaa horseedkii xisbigii waqooyiga ugu xoog roonaa ee la odhan jiray SNL-USB. waxaanu sidanay surwaal cad iyo shaar cad. 12 minute markii la rogay calankii ingiriiska ee la soo dejiyey ee dhulka la dhigay ee la saaray kee aynu harganay waxaanu lahayn jannaa gelaysaan. xubnihii kale ee halkaasi ka hadlay oo isugu jiray madax dhaqameedyada, mas'uuliyiinta laamaha dawladda qaarkood, aqoon-yahano, haween iyo waxgarad kaleba ayaa waxaa iyagana hadalladoodii ka mid ahaa 26 juun anagu raggii joogay baanu ahay. maalinnimadii markii habeenkii la saaray nin iyo naag baa joogay gaara ah goorta calanka bal laga siiyey oo keedu dhulka lasoo dhigay naagta waa suuxda waa dhacday halkii waa naagta laga qaaday ninkiina ilmo buurbuuran baa ka soo degtay dawlad burburta oo sidaa u dhacday bay ahayd. taariikhdu waa wax qoran waa intaa la sheegay waxaanuna maanta leenahay sareeyo uma nuqsaame aan siduu yahay agna ka nasiib ka nasaar waa taa kii ilaahay noo saaray. munaasabadan aynu u taaganahay waa maalin weyn, waa maalinta aynu xornimada qaadanay, waa maalin qiimo leh, waa maalin kasta oo ama taariikhda ka horeysay ama ka dambeysay iyadu ka qaaya weyn waxa weeye oo fooqal kul ah. sidaa darteed waxaan halkan ka xusayaa ugana ducaynayaa dhammaan dadkii u huray naftooda iyo maalkooda ee u soo halgamay hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba ilaahay waxaan uga rajaynayaa naxariis. ugu dambeyn waxaa munaasabada soo gabagabeeyey barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay. aad iyo aad baan runtii farxad ay noogu tahay dhammaanteenba mid yar iyo mid weynba qiimaha iyo qaayaha ay leedahay maalintani 26 juun oo waliba aynu cusboonaysiinay in aynu aad iyo aad u xusno maanta oo aynu weynayno. walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad ku leh raggii u soo halgamay ee soo dhaliyey xorriyaddaas koowaad ee aynu qaadanay 26 juun aynu qaadanay. waxaanu leenahay intii dhibatay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto, inta noolna iyo inagaba dub ha inoogu naxariisto insha allahu tacaala. askariye maxamed khaliif idaacadda iyo telefishinka SBC magaalada Cerigabo. maanta waa maalin weyne maanta waa maalin weyne maanta magaalada Booramo waxaa maanta si weyn looga xusay xuska dabaaldega 26 Juun sanadii 1960 markii Somaliland xornimada ka qaadatay gumeysigii dalka Ingiriiska oo maanta laga joogo muddo 56 sano ah. xafladan ballaaran oo maanta ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta dawladda hoose magaalada Booramo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan laamaha dawladda gobolka Awdal iyo hoggaanka dhaqanka gobolka Awdal oo si weyn ugu dabaaldegay xuska sanad guurada 26 Juun. qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka ayaa ka warramay taariikhda kala duwan ee la soo maray iyo sidii xornimada looga qaatay gumeysigii reer Britain. inkastoo laga saraysiiyey dadka mujaahidna keenay waa dhaweyta laga saraysiiyey kani kii Soomaaliya calanku qaatay bay ahayd taal 26 Juun. waxaan ka soo gaadhnaa
oo hargeysa dib loogu tartay taariikhda Soomaalinimadu haddaba dheer iyo dadnimadu iyo jacaylku halkaa buu taagnaa maanta halkuu taagan yahay aad buu fiican tahay waa maalin jirtay oo qaali oo laga wada markhaati furay laakiin waxaa jira waxaa horta la xusaa maalin calanka meesha yaalla la xusaa calankii 26 joogay inama hor yaallay والله يشكر شنو وانا ترى المشري اللي ورا خير مركا سيدا بقر كشاغي يا غاي ماشي habeenka xaflad lagu qabto waxay hadaan idin sheego guryaha wareega ee xajfaan uu leeyahay ka horjeeda albeerkada Ismaan Hurri Allah yarxamo halkaas oo banaan baa lagu qabtay xaflad dabcaws wuxuu ka soo baxay seero halkaas ee maamulkii gobolka oo dhan oo wadahan aragnay maalin weyn baa haydo waan qadarinay waana dhignay wixii kale oo dhanba sidaa darteed aroorta dhaarta waxaan la joogo waa inay yaba ragga joogay ee calankii saaray ee dacariyaha ka mid yihiin iyo Cabdiraxmaan Sheekh iyo ayaan kolkaan munaasabada u soo noqdo waa ayaan baayaan maalmaha diiniga marka laga reebo maalinta ugu mudan baan u haystaa innagaana le maalinta koonfur markii la isku biiray kowda luuliya ma qabataysay malixya 20 jumbe hadal qaadi jirtay haddaan la soo noqonnay inaan iswaafajino calankeena iyo maalinteennii hore anu sidaasaan ku talin lahaa waxaan moodaa in laga yaro gabadh iyo da'da anigu waan joogay waan codeeyay qoladii ingiriiska ee ku jiray ilaahay ma mahadnaq waxa weeye maalintaas maalin weyn bay ahayd maalin adduunku Soomaaliland ictiraafay bay ahayd oo indhaha soo saaray markii gumaysigii ingiriiska ay doolinay aan calankii qaadanay calanka waan ku qaldanay waan la kufnay halkeedii baa laga wadayaa dibadana habeenka dalantaana hibadale habeenka dalanto iyaa hibadale markaa sharaf bay u tahay Somaliland dowladda Somaliland in markii aynu xorriyadda ka qaadanay ingiriiska 26 Juun in la xuso oo la weyneeyo oo la isugu yimaadaa sharaf bay noo tahay inaynu qiimo yeelno sharaf bay noo tahay maantana haddaan boorna joogno oo culimadeennii iyo aqoon-yahankii iyo cid waliba isugu timid aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa dhinaca kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka Awdal iyo kan degmada Boorama maayir ku-xigeenka magaalada Boorama iyo xogayaha gobolka Awdal oo halkaasi ka hadlaya waxa ay sheegeen waxay noo hayeen wada aqoonsaday xornimada inaga ugu horreeyay 35 dawladood oo waqtiga labadii dawladood ee siyaasadda galbeedka ugu xoog weynaa ee Mareykanka iyo Ingiriiska aqoonsadeen ayaynu inagu ku biiray aynu la tagnay qoladii koonfurta marka waxa weeyaan la isku qaaday ka maalinta qaarka 18 May 26 Juun ujeedadu waxa weeye waa maalintii aynu ku xornimay Ingiriiska bahayd runtii dastuur baynu leenahay waxna jihayaan u leenahay dawlad baynu leenahay dastuurkeenu wuxuu furayaa maalinta national day inuu yahay maalintii lala soo noqday xornimada 18 May ayaa dastuurkeena ku qoran taasaanan mar walbana ah in la xuso laakiin 26 Juun waxaan isxasuusinaa xalayba madaxweynuhu inoo sheegay inay iyadna ay tahay maalin aynu isxasuusino aynu ka soo go'nay ama aynu siiyay isticmaalka Ingiriisku aynu siiyay xornimadeennii xuska dabaaldega 26 Juun ayaa bulshada Somaliland iyo bulshada gobolka Awdalba qiimo weyn ay ku leedahay ayaa la Saciid Cabdi SBC TV magaalada Boorama wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ka qayb galay olole hoos loogu dhigayay isticmaalka dhuxusha sida warkan ku faahfaahinayo wariyaha magaalada Baydhabo maxamed cabdicasiis salaad kulankan afurkii xalay ay isugu yimaadeen wasiiro xildhibaano ururada rayidka ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo badbaadin lahaa xaalufinta deegaanka waxaana Baydhabo xalay lagu dahfuray ololaha hoos u dhigidda isticmaalka dhuxusha Soomaaliya kasoo qaybgalayaashii kulankan iyo mas'uuliyiintii halkaasi hadallada ka jeediyay dhammaantood waxay ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay badbaadinta deegaanka
iyo sidii shacabka ay u hirgelin lahaayeen deegaan ka madax bannaan xaalufin. injineer axmed oo ka socday jaamacadda Bay University ahna qoraa waxa ka qora arrimaha deegaanka isagoo halkaasi ka hadlaya waxa uu sharxay dhibaatada uu leeyahay in deegaanka la xaalufiyo. aqoon darada loo geysto darteed waxa ku dhacay frustration-kaasi sameeyaan waa geedka inay dhir maxaa ku dhaca salka ay ka jaraan maal xididka ay siibaan si maxaa ku dhaca geedkaas mar labaad uu soo bixin meeshan ay noqoto meel bannaan ah oo maxaa ku dhaca nabaad guur ka dhaco oo nolosha bini aadamka dhan laga waayo. waxyaabaha kale inta badan ee sababta waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo water cycling. water cycling waxa waaye inta badan roob da'ayo roob markuu soo dao geedaha inta badan waxay sameeyaan absorb sameeyaan waxa la yidhaahdo ah inay nuugaan biyihii kadibna waxaa ku dhahaa in dib ay u sameeyaan evaporation qaacina geedka maxaa ku dhaha wax qayb la yidhaahdo waxaa jirto astomata waxa waaye geedka marka uu dhargo kadib wuxuu soo saaraa waxaa ku dhahaa biyo yar arkay in kor ay kaga degan yihiin biyahaas marka dambe waxay isku bedelayaan atmosphere hawadii aadayaan. xildhibaan cabdiladiif oo ka mid ah xildhibaanada koonfur galbeed iyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha koonfur galbeed Soomaaliya Jeelaani Sheekh Maxamed oo gunaanadkii kulankan ka hadlay waxay sheegeen in maamulka koonfur galbeed ay kala kaashan doonaan dawladda Soomaaliya sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dadka ku mashquulsan xaalufinta deegaanka. dhirta iyo bani aadamka waxa ka dhaxeeya relationship ka dhaxeeya waa relationship runtii nolosha xaggeeda ah oo marka laga hadlayo ninka noolaha xagga bani aadamka dhirtuna waa noole bani aadamkuna waa noole waa laba noole oo haddana muxuu ahaa midba midka kale yani muxuu ahaa ku tiirsan muxuu ahaa dhirta sida caadiga bani aadamka waxaa la sheegaa inuu carbon dioxide uu soo dayo oxygen uu qaato dhirtana waxaa la sheegaa in cagsi bani aadamka sida uu yani physiological jirkiisu u shaqeeyo cagsigeed inay u shaqeyso oo ah in yani oxygen ay soo celiso carbon dioxide ay qaadato carbon dioxide kii bani aadamka uu soo dayay in dhirta qaadanayso oxygentii dhirta ay soo celisayna in maxaa la dhihi jiray bani aadamkii uu ku nool yahay that's waxa waaye waa relationship ka dhaxeeya muxuu ahaa bani aadamka ama laba noole oo kale ah noolaha plantiska iyo noolaha muxuu ahaa human being ama animalka. ولو يعني أي جرتي حالة هذا ما تجرته ومتقنا أنجرين for example gas كان هذا الاستعمال يو وحنا ما نعرفه هذا الكربون يفهم كلا وهذا الاستعمال ولو يعني بركع أنجرين حدنا قلت إن جرام الله أقولي ما أنتوا حنا يصير accessibility أو إن gas هذي كرنو أو بركع أندر تكمل مكرنو for example أنا محمد عسير سرات تي في هذه SBC بيدو. tartanka quraanka kariimka ee qowlka eebe oo markasta marka la gaaro bisha barakaysan ee Ramadaan lagu maamuuso ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. tartanka ayaa waxaa ka soo qayb galay arday kala duwan oo ka socotay madrasada Badru Taalic iyo madrasada kale ee lagu magacaabo Rugta. tartankan ayaa lagu qabtay Masjidur Rawda oo ku yaala bartamaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Sheekh Duraan oo ka mid ah culimada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ugu horeyn halkaasi ka sheegay bal habka tartanku soconayo. haddana waxaan iska gudagali doonaa maadaama waqtigu iska gaaban yahay ardaduna ay yani dhowr nooc ay ka kooban tahay mowduuca ayaga ayaanu iska gudagali doonaa insha Allah annagoo ardada haddii ilahayd mo xagga xifdiga iyo xagga nutqiga iyo axkaamta mutaabiqeynteeda insha Allah intaba ka fiirin doona de waxa weeyaan waa tartankii loo baahnaa tartamada yani loo baahan yahay oo faa'iidada leh ayuu ka mid yahay tartanka qur'aan wasaabiqu ila maghfiratin min rabbikum laleeyahay ayay maaragtay ka mid tahay. tartankan oo ahaa mid ay ka soo qayb galeen dadka qaybihiisa kala duwan sida dadka waaweyn iyo dadka yaryarba ayaa wuxuu ahaa markii ardaydu ay ku tartamayeen quraanka kariimka ee qowlka eebe sida tan annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم
والله غفور رحيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى tartanka ayaa inta uu socday waxaa ka hadlay madasha uu ka socday tartanka macallimiinta labada madraso ee ku tartamayay quraanka kariimka ee qowlka Eebe ardadii tartanka loo qabtay inaan ku abaal marina insha Allah taala masjidka dhaxdiisa oo ugu qabanay tartanka dhaxdiisa inaan ku abaal marina isla hadda insha Allah taala إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسة إيا كلام كيسة أو أنكو ترتني أو إلهي سبحانه وتعالى نوبو ليسيي إنا وحي إلهي سبحانه وتعالى أرض داس أبا المرين تلوصي لها ماشي إنا أنكو بحنا ربنا ugu dambayn ardaydii kala duwaneyd ee halkaasi ku tartamaysay quraanka kariimka ee qowlka Eebe ee lagu maamuusayay bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa halkaasi jaaizooyin abaalmarina lagu gudoonsiiyay متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا أبيات السونوتري وحي كمدهين كتاب الشاطبية أو كمدها كتبت قراءات كهذا أبيات قاركود هدي أن وحير اسكب الرجل معاني ذو شيخ كجهل لي قفك قارئ القرآن كسو إلهي أجر على نقول شيخ كجهل لي وإلهي مركا يعني أكتيس وشرف يقيم أولي هاي مركا قفل بمركا وحلقة بهاي هاي إنه كتابك القرآن كبرتكون عمل فلا إن شاء الله تعالى محمد سهل عمر محمد قعمدير إذاعة وتلفزيون SBC كسماي guud ahaan daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warka telefishinka caalamiga SBC oo xilligan idinkaga imanaya xarunta dhexe oo TV-gu ku leeyahay magaala xeebaadka Boosaaso warkana waxa idin akhrinaya anigoo Yacquub Casheeya warka xigeenta ku kulmi doono waa bahda wararka SBC oo idinku dhaafaysa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وبركاته.